ceelbiyood madaxweynaha Soomaaliland ka dhagax dhigay deegaanka Beledhig safarkiisii ugu dambeeyay oo ku marayay deegaanada bariga Soomaaliland ayaa si rasmi ah looga bilaabay deegaankaasi. ceelbiyoodkan oo ay dhisayso shirkadda Qorshe Water ayaa dabooli doona baahi biyood muddo dheer ka taagnay deegaankaasi Beledhig. isuduwaha wasaaradda kheyraadka biyaha ee gobolka Togdheer madaxa shirkadda fulinaysa qodista ceelbiyoodkan mas'uuliyiinta degmada Beledhig cuqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi ayaa si weyn u bogaadiyay uguna amaanay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland qodista ceelbiyoodkan iyagoo ku amaanay fulinta ballanqaadyadii madaxweynuhu u ballanqaaday dadweynaha deegaanka Beledhig waxayna tilmaameen inuu ceelbiyoodkani noqon doono mid tayo leh oo anfaca muddo dheer bulshada deegaankaasi waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. riig inoo dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo shaqadiisii maanta bilaabantay oo ka mid ah ballanqaadyadii madaxweynuhu ugu ballanqaaday waxa maanta halkan shaqadiisii ka bilaabantay riigii madaxweynuhu uu dhagax dhigay markii halkan uu marayay mashaariicdii uu dhagax dhigay waa kii ugu dambeeyay oo aan ku hambalyeeynaa madaxweynaha Maxamed Axmed Maxamuud Siilaanyo oo mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisa ku suntan waxqabadka hadda labaad waxa la mudana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo hawshan maanta halkan laga hayay riigan oo ku soo baxay tacabkiisa iyo sawdkiisa iyo go'aankiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. riigan wuxuu waraabinayaa daldhan oo aad u fara badan oo ballaaran marka hore waa meeshanu markay muddo joogtaba qaylada naxdinta leeyahay ka jirtay waxa weeye beedhaamis bay ahayd ilaahay wuu inaga soo furnay beedhaamiskii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ugu ducaynayno ilaahay cimrigana u barakeeyo. ma aha inta noo quray inuu horeeyay wax badan oo dawladdu oo 3 bilood jirtay loo bilaabay iskuulka boardingka oo loo dhagax dhigay oo uu dhamaysiyo imkana la dhigto maalin walbana la sii kordhiyo waxa ku xigay dhismayaal badan oo kale oo hadii ilaahay ka dhigayo xanaanooyin leh oo kuwa caafimaad dadka iyo kuwa xoolahaaba hadii ilaahay ka dhigayo kastankii hadii ilaahay ka dhigayo immigrationkii gurigii martida xaruntii Blaiska wax badan baa jira oo la qabtay kontraagi uu bixiyay shirkaddan Qorshe la yiraahdo oo khibrad badan u leh oo hadii ilaahay ka dhigayo xuduudaha ceelal badan ka qoday doona hadii aan ahay taliyihii Blaiska degmada Beledhig nabadgelyada riiga inaan aad u ilaaliyo isaga iyo dhammaan degmadaba anigoo Nasra Caliya oo jooga Beledhig iyo halkii riiga laga qodayay qurbajooga waxaan u sheegayaa in nimcadaas la idin keenay oo la doonayna ka soo qayb gashaan sida awalba uga soo qayb qaadan jirteen in ay makana ku sii kordhisaan oo ka soo qayb gashaan mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa lagu sugayo lagu saadinayo cabdiyo ma socotaa in badan baanu saadaalinaynay ilaahay baa ka dhigay maanta waxa uu qodayaa dherarkiisu ama dhabsigiisu 1 mitir waa riig aad iyo aad u weyn waa riig cusub waana ceelkii ugu horeeyay oo ku bilaabo waxay muujinaysaa sida madaxweynuhu ay uga go'an tahay inuu ballanqaadyadii uu sameeyay uu hirgeliyo in bisha gudaheeda insha Allah biyo ka wanaagsan oo macaan oo ummadda ku filan oo haraadkii iyo oomanaantii lagaga baxo dadweynaha reer Beledhigna ka codsanaynaa inay ilaaliyaan deegaanka iyo ceelkooda shaqaalaha kruuga ee meesha ka shaqeynayana Mustafa Ismaan magaalo telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Burco.